الرحمن الرحيم haddaba saaxiibadeena qiimaha badan ee ku xidhan barteena youtube-ka cabdalla deeqsiyo sidoo kale facebookkeena xogtaan media waxaan maanta idin haynaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan sheekhii la waaye ee sheekh aadan sunne oo ka mid ahaa culimada magaalada hargeysa ahaana sheekh salafi mayal adag oo si weyn u taageersan nimanka mujaahidiinta sheegta ee al-shabaab ayaa laga waayay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada hargeysa guriga uga deganaa gaar ahaan xaafadda maslaha ninkan oo ay ku eedeeyeen beeshiisa amba beesha oo ka soo jeeday inay dowladdu afduubatay ayay ugu dambeyntii dowladdu iska fogeysay waxayna dowladda somalilan gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo sheegay inuu ku biiray kooxaha xagjirka ee al-shabaab arrintan ayaa si weyn dadka uga walaaceen haddaba sheekh aadan sunne oo ahaa sheekh mayel adag in badanna ku xidhnaa xabsiyada somalilan ilaa iyo 2019 ayaa hadda ka baxsaday gurigiisa lamana ogo meesha uu ka aaday ilaa iyo iminka balse waxay sheegtay xukuumadda somalilan inuu u baxsaday dhinacaayo koonfurta halkaasi uu kaga biri doono saaxiibadiisii marka ay ugu yeereen aba ururka argagixisada ee al-shabaab sheekh aadan sunne oo ahaa nin mayel adag kuna adadkaa diinta markastina fadwoon jiray in la dilo kuwa dastuurka dadka ku dhaqaya laguna dhaqo diinta islaamka ayaa iminka la aaminsan yahay inuu si cad ugu biiray al-shabaab isagoo oo bedeli doono ayay yidhaahdeen hogaamiyihii hore ee ururka al-shabaab axmed cabdi godane oo isna ka soo jeeday magaalada hargeysa haddaba si kastaba ahaatee arrintan si rasmiya looma ogo balse sida ay saadaalinayaan hogaamiyaasha dowladda amba ay dadka siyaasadda falanqeeyaba sheegayaan amba sheekha aqoonta badan u lahaa waxay loo malaynayaa bay u badan tahay ay yidhaahdeen inuu u baxsan doono dhinaca koonfurta soomaaliya gaar ahaana gobolada dhexe ee ay ku xoogan yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab haddaba saaxiibadeena qiimaha badan leh halkan ku xidhanow maxaad ka og tahay sheekh aadan sunne maxaase ka aaminsan tahay inuu ku beeri doono adigu inta aanan sii falanqayn sheekha iyo siyaabaha uga baxsaday halkan hargeysa haddaba saaxiib waxaan ka codsanay inaad muuqaalka leeg saarto una sheergarayso saaxiibadeena kale ee facebook si ay u gaadhaan saaxiibo badan iyo asxaab badan hay u falanqeeyaan arrintan iyaga oo macluumaadka noogu wadaagaya ama noogu reebaya barta kumentiga saaxiib sheekh aadan sunne oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee magaalada hargeysa kana xadiisi jiray mid kamid masaajida ku yaala magaalada ayaa la waayay toddobaadkii lasoo dhaafay kaasi oo gurigiisii maslaha magaalada hargeysa oo ka deganaa gaar ahaana xaafadda maslaha la arkay isagoo xidhan aan dhex yaalaan telefoonadiisii waxauna sidoo kale la baxsaday faamiligiisii oo ka koobnaa ilaa iyo 14 qofood mana jirto xataa wuxuu ka tegay gaadhigiisii taasi oo la aamini waayey inuu sheekhu si fudud uga baxsaday gudaha somalilan isagoo oonan qaadin diyaarad ama aanan tikidh kale u goysan gobolada ama wadamada somalilan jaarka la ah sida etoobiya puntland iyo jabuuti midna taasi oo inta badan hay dadku aada uga anfirin amba ay dhigaha ka taageen oo ay dadku intooda badan u maleeyeen inay xukuumadda somalilan ku celisay jeelkii ha ku xidhnaan jiray muddada dheer taasi oo ay xataa odayaasha uga soo jeeda ku eedeeyeen dowladda inay iyadu afduubatay afduumna ugu xidhan yahay dowladda oo arrinta ka jawaabaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha waxa uu sheegay inay dabeynteen odayaal kasoo jeeda beeshiisa sheekha kuwaasi oo sheegay inay gacanta ku hayn doonaan balse ilaa iminka isaga iyaga laga sugayo halka uu joogo iyo inay soo caddeeyeen intaba haddaba saaxiibkeena qiimaha badanow sheekhan ayaa la aaminsan yahay inuu halkan ka baxsaday kadibna uu si dhex maray dowladayaanka soomaalida ee dalka etoobiya isagoo ugu dambeyn uga sii gudbay dhinaca iyo koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe ee laisku yidhaahdo shabeellaha iyo jubbooyinka halkaasi oo ay si weyn ugu xoogan tahay ururka al-shabaab ayaa sidaan ognahay sheegta mujaahidiin amba sheegta niman u dagaalamaya diinteena islaamka taasi oo ay been ka sheegeen intooda badan sida ay aaminsan yihiin culimada falanqeysa arrintan ama dadka culimada ama dadka muslimiinta ah dhammaantood ururkan oo maraykanka u aqoonsaday 2000 iyo kabakayaacay inay yihiin urur argagixiso ayaa ilaa iyo iminka la dagaalama dowladda iyaga oo qaraxyo waaweyn ka geystay magaalada muqdisho iyo goobo badan oo kamid a soomaaliya taasi oo aanan jirin weli cid soo dabar jirta amba cid dabargoysa tan oo ah ilaa maraykanku ay ku wadaan ilaa iyo 2000 iyo kabakayaacay duqeymo fara badan taasi oonan la ogeyn iminka waxay u dhintay awoodooda iyo inta awoodoodu la eg tahay midna haddaba saaxiibayaal sidee ayay kula muuqataa inuu sheekh aadan sunne ha bedelo axmed cabdi godane oo ahaa hogaamiyihii hore al-shabaab kaasi oo maraykanku madfac la eegtay base kula tahay inuu ka badbaadi doonaa gacantii ha ku baxay axmed godane haddiiba uu ku biiray ururka al-shabaab mase ubadkiisa iyo xaafadiisu
ma sii dhex deganaan kartaa goobaha ay degan yihiin al-shabaab iyagii oo hargeysa ku ahaa caananuugyo amba ku ahaa ciyaal cadnaana ah oo barta loogu soo shaqeeyo bariiskii caanahaba loo isku dari jiray saaxiibayaal. haddaba si kastiba ha ahaatee waxaan ogaan doonaa arrinta toddobaadee soo socda sida ay u kala caddaato iyo halka uu ka soo hadla sheekh aadan sunne. lama ogo weli xog xaqiiqa ah oo sheegaysa inuu sheekhu ku biiray al-shabaab iyo inuu wadamada kale ee jaarka u tahriibay, laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo aan kasoo xiganay arrintan ayaa isagu ku tilmaamay inay si weyn ugu biireen al-shabaab. waa al-shabaab xaguu kaga biiray oo halkee buu ka tegay sheekhu? wuxa uu tegay dowladdeegaanka soomaalida kadibna halka ayuu ka galay xadka ay soomaaliya iyo wadaagan etoobiya, halkaasi oo la aaminsan yahay inay gaadhi ka saareen ururka argagixisada al-shabaab. haddaba saaxiib, adiga mowqifkaaga ama waxaad ka aaminsan tahay inuu sheekhu tegay iyo halka uu ku biirayba saaxiibayaal qiimaha badanow commentika nagula wadaaga. haddii ay jiraan waxaan qaladnayna naga raalli ahaada oo naga saxa qaladka, naguna dhiirigeliya inaad subscribe-ta iyo shaarta iyo leegta aad noogu kordhisaan, waayo waxaan gaadhnay meelo aad u wanaagsan saaxiibayaal. aad baad u mahadsantihiin.